السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحلن جنال كمركة لسود واضح أدي أدوم هدسنتهين مانتا وأحد ونكودة بشا ماتش السدحات سنة كلابدا كن إيا اللحية اللباتنكا مقالدة دقالدا إيران إيو مريكنكا إيو إسرائيل إيو دحيا اللوغة هادليو مقالدة قاركود يوتيوب أيا عدك دادك كحرية أنيقا كليين ما أهان تدفر بدن أو علدا سيشيغان أيان أركي مركا حقيقها أمالينينا حقيقا ما أهان وحق يوتيوب كا arrintaasi waxaan rabay inaan dadka la socodsiiyo muuqaalkan waxaan rabaa inaan maanta idin kula wadaago kadib dilkii hogaamiyihii sare ee wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei Iran waxa ay ku hanjabtay in ay aargoosan doonto haddaba duqeymaheeda ay ku wado Israa'iil iyo wadamada bariga dhexe oo saldhigyada ciidamada Mareykanku uu ku leeyahay way si laba jibaartay hadda waxa soo baxaya in Mareykanku uu qirtay 3 askari in ay ka dhinteen oo Iran ay ka dishay shan kalena ay ka dhaawacmeen madaxweyne Trump oo isaguna goordhow bartiisa Truth Social ku soo qoray in 48 kamid ah hoggaanka Iran ay dileen 9 markab oo ciidamada badda Iran ay leeyihiin ay quusiyeen kuwa kalena ay ku daba joogaan haddaba Republicaanka ayaa bilaabay carada ay ka qaadeen dagaalka madaxweyne Trump uu ku qaaday wadanka Iran kadib markii ay soo baxday in askar Mareykan ah ay ku geeriyootay kulankii qolka situation roomka oo madaxweyne Trump uu kala socday sida dagaalka uu u socdo ayaa waxaa laga arkay sawir madaxa shaqaalaha ee aqalka cad Susie Wiles gacanteeda inay ku xiran tahay saacadaha noocan qofka fitnesskiisa lagu kontrolo taasi oo ammaanka madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta la joogta qatar ku ahayd sidoo kalena waxaana idin la wadaagayaa Iran oo weerartay maraakiibtii shidaalka siday ee marinka Hormuz marayay oo mid kamid ah arintaasi oo 20% shidaalka caalamka uu soo maro Trump iyo Netanyahu oo shacabka Iran ugu baaqayay inay isku soo baxaan maadaama dawladii la tabareeyay in dawladda ay afgambiyaan iyo nin asal ahaan la leeyahay Senegal ayuu ka soo jeeday oo muslima oo xalay baar ku yaala gobolka Texas ay ku dilay 2 qof 14 kalena ku dhaawacay ninkaasi maxaa laga helay gaarigiisa dharka uu watayna maxaa ku qornaa iyadoo hadda arrin argagixis darteed loo baarayo shalay ilaa iyo maanta ammaanka kaniisadaha masaajida meelaha sinagoga oo yahuud ay wax ku caabudaan tareenada aad ayaa loo adkeeyay maxaa yeelay waxa laga cabsi qabaa dad ka careysan dagaalka Mareykanku Iran uu ku qaaday in dhibaatooyin gudaha Mareykanka ay ka geystaan arrimahaas oo idil ayaan idila socodsiinaya balse marka hore soo dhawaada umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas 1 hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana luweyn karo xilliyada salaada 2 gaadiid ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka 3 barida qaabka loo guto acmaasha umrada 4 umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645459284 mahadsanidin waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaaraynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online uu ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa kamid ah Qur'aanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaarina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda bishaara kaaga timid Leo Transportation badoonaysa in lagu iibiyo truck kaas oo aan lahayn wax riba ah lacag horumarinna aan laga rabin waxa toddobaadkii $200 oo kaliya ku heli kartaa trailer 2027 ah sidoo kale ma tahay owner operator iyadoo 12% laga jari doono lacagta guud ee ku soo gasha waxaad heli doontaa trailer 2027 ah oo aad bixin doonto $200 oo kaliya toddobaadkii oo ku weheliyo insurance raqiis ah oo isna ah $200 oo kaliya maalintii labaad ayuu galay dagaalkii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran markii ay Iran xaqiijisay dilkii hogaamiyahoodii sare Ayatollah Ali Khamenei oo 37 sano wadankaasi soo xukumayay Iran waxa ay ku hanjabtay in ay aargoosan doonto wasiirka arrimaha dibadda wuxuu yiri calankii uu kor u qaaday hogaamiyaheena sare
dhulka ma dhigi doono. waxaana sidoo kalena uu sheegay in xogayaha guud ee golaha amniga qaranka ee wadankaasi Iiraan waxa uu yiri sida qalbigeena ay u burburiyeen ayaan Israa'iil iyo Mareykanka qalbigooda u burburin doona. marka waxay sii laba jibaareen duqeymihii Israa'iil ay ku hayeen. Israa'iil khasaare fara badan ayaa soo gaaray caasimadda Tel Aviv iyo magaalooyin kale ilaa ay xalay gantaalada balistiga ah ee Iiraan ku garaacisay. 8 qof oo dhimasho ayay Israa'iil sheeganaysaa. Imaaraadku 3 qof ayay sheeganayaan. sidoo kale wadamada Qatar, Kuwait, Bahrain duqeynta Iiraan weli sidii ayay ugu sii waday. marka madaxweyne Trump ayaa xitaa qiray arrintaasi. wuxuu yiri Iiraan waxay qorsheynaysaa inay si adag u garaacdo saldhigyadeena ku yaala bariga dhexe. anaguna wuxuu yiri sidaasi si ka adag ayaan u garaaci doonaa. Trump waxa uu bartiisa True Socialka xitaa goor ugu soo qoray in 48 ka mid ah hoggaanka Iiraan ay dileen. waxaana uu sheegay in 9 markab sidoo kale ay quusiyeen xarumihii ciidamada baddana saldhigyadoodii ay burburiyeen. wuxuu yiri maraakiib kale oo muhiim u ah hadda ayaan ku daba joognaa, kuwa muhiim u ahna waan burburin. haddaba dagaalku waxaad u muuqanaysaa inuu hadda weji kala sii yeelanayo. maxaa yeelay askar Mareykan ah ayaa geeriyootay. arrintaasina taageerayaasha xisbiga Trump iyo weliba xisbigiisa ayna Republikaanka ah aad ayay uga careysan yihiin. xubno Republikaana qaarkood marka laga reebo dimuqraadiyiinta ayaa hadda waxay leeyihiin iyadoo Congress-ka uusan ogolaasho ka helin ayaa madaxweyne Trump isagu iskii uu dagaalkan u galay. wadanka Mareykanka markuu dagaal ku qaadayo wadan kale ogolaasho Congress-ka ayaa looga baahan yahay, laakiin Trump hadda ogolaasho ma uusan helin. hadda marka 3 askari oo ciidamada Mareykanka ayaa dhimatay ayaa la leeyahay sida Central Command saldhigga dhexe ee ciidamada Mareykanka uu xaqiijiyay. 5 kalena waa ay dhaawacmeen. waxa la leeyahay sidoo kale askar kale ayaa jirto dhaawacyo fudud ay soo gaareen oo iyaguna dhawaan sida taliska dhexe uu sheegay ku soo laabanaya shaqadooda. ciidamadan halka ay ku geeriyoodeen lama sheegin, laakiin waxaa loo maleynayaa gantaaladii ama diyaaradihii drone-iska ee kamagaziga in maraakiibtii ay saarnaayeen lagu dhuftay, sidaasina ay u geeriyoodeen. waxaa sidoo kale taliska dhexe ee ciidamada Mareykanku ay sheegeen in eheladooda 48 saac gudahood lagu wargelin doono askartan geeriyootay. marka markii ay soo baxday dilka askartan ayaa caradu haddana ay sii kordhaysaa. maxaa yeelay ninka qaramada midoobay u qaabilsan dowladda Mareykanka oo la yiraahdo Michael Waltz ayaa waxa uu sheegay in xornimadu aysan si free ah aysan ku imaanin oo bilaash ah. arrintaasina cara weyn ayay abuurtay. yaa la xureynaya? ma shacabka Mareykanka la xureynaya? shacabka Iiraan miyaa la xureynaya? muxuu ula jeedaa arrintaasi? hadalkaasi viral ayuu noqday markii uu ka hadlayay UN-ka golaha amniga qaramada midoobay kulankii degdega ahaa. sidoo kale safiirka dowladda Iiraan golaha ammaanka u fadhiya ayaa isaguna shalay hadal uu yiri wuxuu noqday mid viral. Mareykanka waxaa looga baahan yahay in ay akhlaaq yeeshaan ayuu yiri siiba safiirkan. maxaa yeelay hadallada uu goobta ka jeediyey ma ahayn hadallo aad u wanaagsan. sidaas darteed marka hadda askar Mareykan ayaa dhimatay. waxa la 3 waa ay dhinteen, 5 kalena waa dhaawac. Republikaankuna arrintaasi ayay aad uga careysan yihiin. madaxweynaha ajendayaashiisa dagaalkan la xiriirta ayay aad uga careysan yihiin maadaama hadda dhimasho ciidamada Mareykanka ay timid. sidoo kalena waxaa muuqanaysa in hadda howlgalkan oo loogu magac daray Operation Epic Fury in markii lagu dhawaaqay madaxweyne Trump habeen hore Mar-a-Lago qolka situation roomka oo markii xaaladdu dagaalku uu bilaabanayay uu kala socday in nolosha madaxweynaha iyo xubnaha la joogay ay qatar gashay. maxaa yeelay madaxa shaqaalaha ee qalka cad Susie Wiles oo madaxweynaha daacad waa isla markaana si aad ah ugu dhow markii la doortayna qofkii ugu horeeyay oo magacaabo ahayd ayaa waxaa sida sawirkan aad ka aragtaan gacanteeda waxaa lagu arkay saacadahan qofku fitnesskiisa caafimaadkiisa kala socdo. waxaa la yiraahdaa leeyahay Whoop ayaa la yiraahdaa, fitness tracker ayaa la yiraahdaa. marka madaxweynaha waa lagu soo tixraaci karay ayaa la leeyahay. marka xaalad noocaasi oo kala jirto wax kasta oo elektrooniga waa la iska fogeeya. shalay waa tii la arkay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan oo mobillo wax looga duubayo. marka waxaa jirta waxa la leeyahay arrintaasi ammaanka madaxweynaha ayay qatar gelisay iyo xubnaha la joogay. maxaa yeelay saacadaasi waa lagu soo tixraaci karay. arrintaasi ayaa hadda sidoo kale warbaahintu ay si aada ay uga hadlaysaa. waxaa sidoo kale jirta in shidaalka caalamka hadda laga yaabo in sare u kac laga dareemo. maxaa yeelay marinka Hormuz oo maraakiibta shidaalka wada ay soo maraan 20% shidaalka caalamka ayaa Iiraan waxay sheegtay maraakiibta inay bartilmaameysan doonto. haddana kii u horeeyay ayay bartilmaameysatay oo la arkay isagoo gubanaya. dhinaca kale Trump iyo Netanyahu ayaa waxay ugu baaqayaan shacabka Iiraan inay isku soo baxaan isla markaana dowladooda ay afgambiyaan. Trump habeen hore markii uu ku dhawaaqay dagaalka waa kii yiri marka aan idin aslaaxino oo madaxda aan dilna kadib shacabka adinka ayaan idinku wareejin doonaa, adinka ayaan iska leh hoggaanka wadankaasi. marka hadda waxay ugu baaqayaan inay isku soo baxaan.
dhinaca kale ilaa iyo shalay waxaa laga digayay Mareykanka gudihiisa weerar argagixis inay ka dhici karaan wasaaradda amniga gudaha iyo FBI waxaa la adkeeyay ammaanka masaajidada kaniisadaha goobaha yahuudda ay wax ku caabudaan ee synagoga iyo waliba goobaha train stationada waxaa la yiri dad ka careysan dagaalkan Mareykanku ku qaaday Iran ayaa laga yaabaa laakiin kali ah inay weerar geystaan hadda arrintaasi xal ayay soo baxday gobolka Texas baar ku yaala gaar ahaan magaalada Austin ayaa waxa la leeyahay nin asal ahaan ka soo jeeda Senegal oo muslima waxa uu xalay ku dilay 2 qof 14 kalena waa uu ku dhaawacay habeenada Jimcaha iyo Sabtida waxaan ognahay baararka dadkan ay gaalada inay isugu yimaadaan oo ay ku caweeyaan marka waxa la leeyahay hadda FBI-du waxa ay baarayaan in xiriir uu la lahaa ninkan uu ka careysnaa dagaalka Mareykanku uu ku qaaday Iran oo weerar argagixiso darteed ahaanteed ayaa loo baaraya marka waxa la markii dambana booliska ayaa ninkaasi dilay ninkan ilaa hadda magaciisa lama shaacin laakiin waxa la leeyahay waa muslim waana muwaadin Mareykana waxana uu ka soo jeedaa wadanka Senegal gaarigiisa markii la baaray waxa laga helay kitaab Quraan iyo sidoo kalena in waxa la leeyahay dhar kuwa muslimiintu og ayuu ku libisnaa sawirkan aad arkaysaan waa ninkaasi toogashada geystay isla markaana waxa uu watay huurigaas ama funaanadaasi ay ku qoran tahay property of Allah hantida Ilaahay waxuna ka sii hoos watay ayaa la leeyahay funaanad calanka Iran uu ku sawiran yahay marka hadda waxa muuqanaysa ninkan gaarigiisina in la baaray in laga helay kitaabkaasi Quraanka iyo sidoo kalena dharkaasi uu ku libisnaa baarka uu weeraray waxa la yiraahdaa Beaufort Bar xalay 8 saac habeenimo ayuuna weeraray waxa la leeyahay dadka guud ahaan dhaawacmay ilaa 17 qof waaye laakiin 3 kamid ah dhaawacooda waa uu fudud yahay 3 kamid ahna dhaawacooda aad ayuu u adag yahay marka ninkaasi waxa hadda lala xiriirinayaa in arintaasi dagaalka Mareykanku ku qaaday Iran darteed uu ka careysnaa isla markaana uu weerarkan u geystay ninkan laga shakisan yahay wali magaciisa aan la shaacin waxa uu horey ugu soo naalaa gobolka New York intii u dhaxaysay 2000 ilaa 2008 walina baaritaan ayaa socda marka ninkan inuu ka careysnaa dagaalka Mareykanku ku qaaday Iran oo weerarka sidaas darteed uu u fuliyay in kale ayaa baaritaan walow isagii uu dhintay haddana gurigiisii gaarigiisii ayaa la baaraya wali magaciisa lama shaacin laakiin waa muslim oo muwaadin Mareykana oo wadanka Senegal ka soo jeeda ayaa la leeyahay marka waan arki doonaa arrimahaasina waxyaabaha ka soo kordha aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo